muuqaalkan soo socda waxaan kugu tusi doonaa 4 qodob oo kaa caawin doona inaad barato graphic design adigoo aan wax lacag bixinin ama koorsooyin aan lacag bixinin. magacaygu waa Fattax Maxamed Cabdi, channelka daawanaysa Uslub Graphics. haddii aad channelka cusub tahay fadlan subscribe saar, la wadaag asxaabtaada, siina share garay. haddii aan bilaabno casharka, qodobka horeeya waxa weeyaan aad u baahan tahay 4 qodob inaad marto markaad doonayso inaad graphic design barato si iska ah oo aadan bixinaynin wax lacag ah. waxaad u baahan tahay marka horeysa inaad barato learn fundamentals ama aasaaska inaad barato graphic design, sida inaad barato color theory. haddaad halkaa ku qorto color theory, markaad Google soo gasho haddii halkaa color theory ku qorto uu ku soo saaray. marka waxaad u baahan tahay marka horeysa in aad barato color theory, aad barato aad si fiican u fahanto ama website ka akhri ama iyadoo video ayaad raadsan kartaa in aad marka horeysa color theory fahanto. kadib haddana fundamentals kale waxaa ka mid ah inaad fahmi karto typography-ga, faruhu qaabka isku qaataan, sida muxuu ahaayay inkastoo markaad far la soo degayso oo ku siinayo ta ay compatible ka isleeyihiin ama farta ay isqaataan farta aad dejisanayso, laakiin waxaa u baahan tahay inaad fahanto faruhu qaabka isu qaataan, layout-ka sida loo sameeyo. iminka haddii aan halkan kugu tuso layout Google Images intaan tagno aan layout ku tuso, layout waxaa u baahan tahay layout-ka sida loo sameynayo. iminka kan haddii aan ku dhufano layout-kan sida loo sameynayo, sida design-ka, halka sawirka la dhigayo, halka qoraalka la dhigayo, halka magaca la dhigayo, halka title-ka la dhigayo, halka contacts-ka la dhigayo. waxyaabahaas oo dhan baad u baahan tahay inaad fahanto oo ay ka mid tahay layout, ay ka mid tahay oo ay ka typography ka mid yahay, oo ay ka mid yahay color theory ka mid tahay. waxyaabahaas oo dhan baad u baahan tahay si aad graphic design u fahanto marka hore. inta aadan software iska baranin ayaad u baahan tahay inaad fahanto marka hore, oo waxyaabahaas ka mid ah fundamentalska iyo waxyaabo fara badan oo markaad baadho ku soo bixi doona. marka waxaad u baahan tahay haddaba inaad intaas soo fahanto marka hore. marka qodobka horeeya markaad intaas soo fahanto, qodobka labaad wuxuu noqonayaa inaad barato softwareska ama softwarada la isticmaalayo. haddaba anigu halkaasaan ka bilaabaya practical ahaan inaan ku tuso meelaha aad ka baranayso iyo meelaha aan anigu kugula talinayo inaad ka baadho ee aad ka barato. marka horeysa waxaan u baahanahay horta inaan fahano softwareska. marka waxaa jira 2 shirkadood baa bixiya softwarada graphic design-ka anigu inta aan aqaano. waxaa jira Adobe CC wax la yiraahdo, jira Adobe Creative Cloud. marka haddii Adobe CC aad halkaa ku qorto oo aan shirkadda gudaheeda galo, shirkaddani waxay bixisaa programs aad u fara badan oo content iyo dheeraada ay bixisaa, laakiin kuwan baa ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay graphic design markaad tahay: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator iyo Adobe InDesign. waxyaabahan kale XD iyo Premiere iyo softwarada kale iyagu waa video editing, inkastoo kan laftiisu UI and UX design yahay. laakiin waxaa u baahan tahay si aad u barato softwareskan aad u baahan tahay inaad barato. marka haddaba waxaa loo baahan yahay qaabkeed u baranaysa. marka horeysa horta waxaad u baahan tahay softwareka aad wax ku samaysanaysa inaad go'aansato. ma waxaad isticmaalaysaa Adobe CC oo bixisa Adobe Illustrator, Adobe Photoshop iyo Adobe InDesign baad isticmaali doontaa. shirkadda kale aan ku tusaya waxa weeyaan halkan baan ku qoraynaa iyadana Infinity Designer baa la yiraahdaa. Infinity Designer ama Infinity kaliya aad ku qori kartaa ama Infinity Designer. kadib click baa leedahay, halkaas aad ku qoraysaa Infinity ma ku dhufatay. waa tan shirkaddu waxyaabaha ay iyaduna bixiso waxaa ka mid ah hoos markaa u socoto softwareska ay bixiso. Infinity Designer waa Adobe Illustrator buu dhigmaa marka la hadlayo muxuu ahay la eegayo isu dhigaanshaha iminka labada software. iminka Infinity Designer wuxuu dhigmaa Adobe Illustrator, Infinity Photo wuxuu dhigmaa Adobe Photoshop, Infinity Publisher-na wuxuu dhigmaa Adobe InDesign. marka waxaa u baahan tahay marka horeysa inaad go'aamiso shirkadda aad isticmaalayso ama softwareka aad isticmaalayso. marka aad go'aamiso labada softwareka aad isticmaalayso, kaba soo qaad iminka anigu waxaan go'aaminayay inaan Adobe Photoshop isticmaalayo ama Adobe CC softwareskeeda aan isticmaalayo. haddaba waxaan u baahanahay halkan haddii aan ku dhufto iminka learn more aan ku dhufto, intaan Adobe CC soo galo, iyada lafteeda waxaan ka helayaa barasho iyo tutorials ay lagugu barayo softwarekan muxuu ahaay aad isticmaalaysa, qaabka loo isticmaalo iyo sida uu u shaqeeyo iyo tutorials ku saabsan. marka learn and support haddaan tago
halkan baan ka helayaa sida aan rajaynayo waa kuwan tutorials haddii aan ku dhufto tutorialka marka halkaa Adobe Photoshop lafteeda waa ka dhex baran karaa softwarekaan u baahanahay oo halkaa iminka get to know Adobe Photoshop haddii aan ku dhufto waxaan ka helayaa tutorials oo 21 minute weeyaan marka halkan lafteeda waa ka baran kartaa laakiin waxa u baahan tahay shirkad maadaama ay dhigayso The first thing you'll do in Photoshop is either open a file or create. laakiin maadaama oo aad wixii si aad doonayso inaad wixii ku shaqeyso ama aad si fiican u dhigato waxa u baahan tahay inaad si detail u barato haddaba meelaha u fiican ee laga barto muxuu ahaayey software markaad dhiganayso si detail waa YouTube marka haddii aan halkan YouTube tagno YouTube ku dhufano waxaa jira YouTube aad u fara badan oo bixiyo casharro ku saabsan muxuu ahaayey graphic design marka waxaan u baahanahay marka u horeyso haddii aad luuqadda Englishka si fiican ugu fiican tahay way kala duwan yihiin iminka qofka luuqadda Englishka ku fiican iyo qofka ku Soomaaliga si fiican ula haysta ee aan muxuu ahaayey isagu laakiin Englishka aad u garanayn marka waxaan samayn doonaa mid walba inaan channel gaar ah soo saarno marka halkan baa waxaan ku qorayaa muxuu ahaayey marka horeyso ardayda Soomaaliga ee muxuu ahaayey aan Englishka si fiican u fahmin ayaan waxaan tusi doonaa channel walaalkeen Soomaali leeyahay oo Grassroots ayaan ku dhufanayaa marka halkan haddii aan ku dhufto halkan waxaad ka helaysaa playlists aad u fara badan oo muxuu ahaayey aad wax ku baran karto Adobe Illustrator baa ku jirta InDesign baa ku jirta Adobe Photoshop baa ku jirta marka haddii aad u baahan tahay fahanka oo aad Soomaali wax in qof Soomaali wax ku dhigay aad wax ka barato u baahan tahay waxaad tagi kartaa Grassroots tagi kartaa waxa kale oo tagi kartaa isla janaalkan aad daawanayso laftiisa ayaa waxaad tagi kartaa inaad halkaas ku qorto searching barka kadib aad ku dhufato haddii aad playlistiska tagto inkastoo anaga Adobe Photoshop iyo muxuu Adobe Illustrator iyo Adobe InDesign oo dhameystiran inoo diyaarsanayn laakiin waxaad diyaarsan Adobe Photoshop oo dhameystiran baa diyaarsan oo aad si detail wax fara badan uga baran doonto marka waxa u baahan tahay marka hore haddii aad tahay arday Soomaali wax ku baranaya inaad channel aad u baadho adiguna qofku inuu wax baadho ayuu waxyaabo fara badan ku fahmi karaa marka qofku inaad aad wax u baadho u baahan tahay imka labadaas oo kale aan ku tusay waxaan doonayaa ardayda Englishka fahmaysa ee muxuu ahaa English wax ku baran kartana inaan tuso marka haddii aan ardayda lafteeda tuso waxa loo baahan yahay marka hore haddii aad doonayso inaad barato ay graphic design ka wax kaga yar bilaaban yihiin oo Adobe muxuu ahaayey Adobe Photoshop wax ka yar hayso waxa u baahan tahay inaad halkan ku qorto Satori Graphics waa channel aniga laftaydu aan ku xidhanahay oo Satori Graphics la yiraahdo marka haddii aad halkan tagto waxyaabo aad u fara badan baad ka faa'iideysaa oo waxyaabihii basic ah ay ka mid yihiin oo imka haddii aan saa hoos ugu socono waxa ka mid ah typography trends marka waxyaabaha aad ku faraha badan aad ka faa'iideysaa waxa ka mid ah fontska color gradingka si isu qaataan kalarada typography-ga waxyaabo aad u fara badan baad ka faa'iideysaa haddii aad u baahan tahay inaad layout iyo typography fahanto laakiin haddii aad u baahan tahay inaad basic ka soo bilowdo muxuu ahaayey designing halkan baad waxaad ku qori kartaa Adobe Photoshop Adobe Photoshop beginner baa ku qori kartaa saa markaad ugu qorto marka wuxuu u baahan yahay YouTube ku laftiisu in wax laga baaro wuxuu u baahan yahay technique iyo hab wax looga baaro iminka markaad sidaa u soo gasho waxyaabaha ku yara khalkhalinaya waxa ka mid ah wax walba video buu ku soo dhigayaa iminka haddaad arkayso Adobe Photoshop beginner free course hal video baa halkan yaala halkan kale hal video baa yaala halkan hal video hadda waxaan u baahanahay qofku inuu helo playlist 10 isku xirxirana 10 isdaba yaala inuu qofku helo marka waxaad tegaysaa halkaas filter ku qoran tahay ayaad tegaysaa kadib waxaad tegaysaa halkaas tape baad u tegaysaa kadib playlist waa ku dhufanaysaa playlist markaa ku dhufato halkan waxaa helaysaa iminka ninkaas Adobe Photoshop waa 33 cashar oo isdaba yaala ayuu soo dhigay ninkaasi kan 19 cashar kan 12 cashar marka eg anigu ma jiro meel aan ku oranayo meeshaas gal oo ka daawo oo ka baro laakiin eg waxaan u baahanahay qofku inuu maskaxdiisa ku socon karo oo tiisa wax ku dooran karo marka waxaan u baahanahay markaad saa u soo gasho ee halka playlist doorato waxaanu playlist ku soo saaro inaad mid walba eegto casharada uu bixinayo eegto kadib ka aad isleedahay waxyaabo fara badan baad ka faa'iideysaa ka aad ka dhigato oo si serious u dhamaysto ayaad u baahan tahay marka qodobkaas
halkaasna isaga kaga baxaynaa. Waxaa ku xigta design community. haddaba waxaa u baahan tahay qofku markuu softwaradiina soo fahmo basicgiina uu fahansan yahay iyo waxyaabihii topographic iyo color gradingkii, waxaa u baahannahay qofku inuu inspiration heli karo ama dhiirigelin uu heli karo designkiisii. oo maadaama qofku bilow yahay waxa laga yaabaa marka wax sameeyo inay la qurux badnaan weydo. marka waxa u baahannahay halkan waxaan tegaynaa Facebook. markaan Facebook tagno waxaad tegi kartaa halkan, waxaan tegaynaa searching bar, halkaasaan tegaynaa, waxaan ku qoraynaa graphic design. graphic design markaad ku qorto wuxuu kuu soo daari doonaa gruubyo ciida ka badan oo graphic design oo arday graphic designer ah, dad ama khubaro ay ku jiraan, oo laga yaabo in maalin walba intaas la soo dhigo design. marka haddii aan iminka mid ahaan ku dhufano kale, kuwan haddii aan kan iminka ku dhufano kale graphic design 441 kun oo qof baa ku jira. marka haddii aad hoos u socoto waxaad arki kartaa in yar, haddii aan hoos u socono internetka ayra culus, haddii aad hoos yar socoto iminka dadkaas inkastoo iyagu ay sameynayaan muxuu ahaay ay sawirayaan art ay isticmaalayaan iminka reach my work. iminka qofkaasoo kale wuxuu isku dayay inuu halkaas keliyo looga uu ka sameeyo kurkaas. waxyaabahan badankooda illustrator baa lagu sameeyaa. marka waxaa u baahan tahay inspiration, ama waxaad samayn kartaa gruubyadan intii aad gasho. waxaa jira markaa gruubyo cashara lasoo dhigo oo aad cashara ka heli karto, fiidiyoyo cashara ah oo qof cashar samaynaya aad ka daawan karto. waxaa kaloo tegi kartaa haddii aad Facebooka ka weydo meel aad ka hesho, waxaad tegi kartaa Pinterest. Pinterest baa waxaa aad looga helaa muxuu ahaayey graphic design, muxuu ahaayey inspiration of graphic designka ayaa waxaa aad looga helaa halkan. marka Pinterest markaad saa usoo gasho waxaad samayn kartaa inaad halkan ku qorto graphic design. graphic design halkaa markaad ku qorto aad click tidhaahdo, kadib halkan waxaad ka helaysaa intee oo kun oo muxuu ahaayey design oo kala qaaba. oo iminka graphic design markaan ku qoro wuxuu soo saaraya typography iyo waxyaaba saa la isu dhexgeliyey, ma garanaysa. laakiin waxaa u baahan tahay iminka inaad specific cashar oo kale aad tidhaahdo, aad doorato. iminka kale halkaa haddii aan ku qoro, iminka aan AD card oo kale ku qoro, AD card design aan ku qoro, okay, intaas oo kun oo AD card oo kala duwan oo inspiration ahaan aad u qaadan karto ayuu ku tusaya. oo aad hadhow waxaad samayn kartaa xitaa inaad isku daydo bal horta inaad kanoo kala keento, intaad sawir halkan ka qaadato inaad kanoo kala marka hore keento. markaad kanoo kala keento ee shaybiska qofkan isu sameeyay iyo sida waxaan la isu dhexgelgeliyay aad fahanto, aad kadib adigu mid aad maskaxdaada ka keentay aad samayso. waxaanad isku daydaa wax walba internetka ka keento inaad sidiisa u soo celinin. waxaad isku daydaa inaad samayso markaad practice garaysid fahanto si uu sameeyay qofkani, kadib aad maskaxdaada ka keentay aad samayso. marka qodobka saddexaadna intaa weeyaan oo Pinterest iyo waxaad isticmaali kartaa Facebook. waxaa kaloo jira social media kale fara badan oo aad ka heli kartaa ee Instagram oo kale ah, waad ka heli kartaa graphic design inspiration waad ka heli kartaa. qaybta u dambaysa waxa weeyaan waa qayb aan iyadu practical lahayn ama si lagu tuso. marka waxaad samayn kartaa inaad project aad practice garayso oo aad projectyo fara badan isku daydo inaad samayso. AD card inaad 5 mir samayso, AD card 5 mir oo business card samayso, poster 5 xabba samayso, aad adigu ku celceliso muxuu ahaayey posterada iyo waxyaabaha designiska fara badan leh, aad ku celceliso. marka aad ku celceliso wuxuu ku noqonayaa wax iska fudud oo aad markaaba samayn karto. laakiin haddii aad intaad barato wixii oo aad mar samayso ay maalintaasi kugu dambayso, hadhow way kugu adkaanaysaa wixii inaad dib u samayso, waayo wixii waxaad ku celcelisay ma waxaana la yidhaahdaa practice makes perfect. wax kasta oo lagu celceliyo qofku ku celceliyo wuxuu ku noqdaa wuxuu ku wanaagsan yahay ayuu ku noqdaa. marka waxaan doonaynaa in qofku ku celceliyo wixii si fiican ugu fahmo. marka halkaas inoogu joogaya. fadlan haddii aad timaha ku cusub tahay subscribe saar, la wadaag asxaabtaada siina share garay. wixii faallada haysto commentiga noogu reeb. fadlan haddii aad wax su'aalo qabtana waxaad iga soo weydiin doontaa Telegramka aan habka hoose dhigay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.